ardayda wax ka barata Jaamacada Admas University magaalada Borama waxayda kala duwan ayaa maanta bilaabay in difaacdaan buugaagta la soo qoro mar kale Qalinjabinaysa loo yaqaan thesis-ka macluumaadka ku jira buugaagtan ay ardaydu halkaas ku soo bandhigeen waxaan ardayda maanta difaacanaya buugaagta ka kala socdeen kulliyadaha caafimaadka Babaleheed kulliyadda Development Study iyo kulliyadda barashada culuumta teknolojiyadda ICT-ga waxaana kala qayb galay la wadaagay daraasaadka buugaagtani maamulka Jaamacada Admas University ee magaalada Borama iyo maamulayaasha jaamacadda faraacideeda Addis Ababa iyo Hargeysa waxaana ugu yaraan ka sadalka dulka soo jeeday samahatan tafaasiil dheeraad ah ka bixiyay heerka waxbarashada Jaamacada Admas iyo kulliyadaha ay bixiso Professor Ahmed Abdullahi Tano gudoomiyaha Jaamacada Admas ee magaalada Borama jaamacadu waxay productive jaamacad soo saarlay oo gedisan jaamacadaha kale maanta qoladina artig maarta Qalinjabinaysa Qalinjabinta halka u fadhiyo waxa weeye waxaan arkayaa in productivity wadada soo saarlay oo berita hadii la yiraahdo marka maanta suuqa tagtaan hadii la yiraahdo runtii aad ka qayb qaadan kartaan ama tartanka meel adag runtii aad gali kartaan because of arrimo dhowr oo shahaada jaamacad oo maarta runtii recognized oo sabab professor sheegay waxa weeye oo East Africa dadku jaamacadaha weyn kamid ah certificate waxa weeye maashan weeye syllabus kooda waxa weeye wadada la fikrayo hadda soo barateen ayuha runtii waxa weeye ma aad loo hufay oo marka uu la garan karo istabiska qaadi kartaan markasta runtii maanta jaamacadu waxay soo bandhigaysaa awoodeedii soo bandhigaysaa maadaama Qalinjabinaysa groupkeedu gubaad awoodeedii maanta runtii soo bandhigaysaa marka taas oo maartay mujtamac aan maartay kula tartami doona hadii la yiraahdo So I dare to say that Admas is one of the pioneer private universities all over Ethiopia. Now I dare to say all over East Africa or the Horn of Africa because it is the only university which is residing in 3 countries. When it comes to the number of branches that it has, Admas University is, by the way, one of the 4 private universities. Ethiopia currently has got 42 universities, 38 of them are government universities, and 4 are private universities, and Admas is one of the private universities. intaas kadib ardayda ka jirta kulliyadaha ayaa waxay bilaabeen soo bandhigaan macluumaadka ku duugan buugaagtan ay qoreen waa kuna daba qaar kamid ah ardayda maanta difaacanaya buugaagtani oo halkaas ka soo jeedinaya macluumaadka ku jira buugaagta ay qoreen who have experience more than 10 years on the other hand are 43.75 also teachers who have experience 5 are less than 5 years. Teachers who have less than 5 years are also 23.5. So this is describes the schedule or the table. So where the party of the Libya minora and Libya majora are they structured together and they accept or they left the small space that passes the urine and menstrual blood to scope. In this design of network, communication is automated. The IoT devices and sensors, the IoT is Internet of Things. The IoT devices and sensors are working together automatically. The network devices are connected in 2 ways, wired and wireless connection. Users can connect each other in a short time by sending an email or chatting. This describes the research, design and local of study and sampling technique and sampling size and research instrument, data collection procedure and data analysis technique that will be used in this study. And the time is near to offer, so we have to read the conclusion and recommendation to you. And our conclusion was cross-sectional steering and girls using data collection survey from school comprehensive. We use a questionnaire. So my question is, you did good, but when you were doing this presentation, which kind of design you use it? Which kind of design? The design of the study? The type of design we took it was cross-sectional survey. I'm not going in depth to your research, but I'm going one simple question, which you are learned in your research. Can you differentiate population and sample? The question is differentiate between population and sample. Population is a number of population that we studied,
and sample is a number of population that we study from the population that we find this. Conclusion. The study found the comprehensive methods and of teacher subject which are the core improvement student holistic understanding and mathematical concept of the eventually enhance their performance in the subject were completely absent in the subject in classical Borama region while the most of the student kadib markii ay soo ilaatay bandhiga buugaagta ardayda ka qalinjabinaysa sanadkan jaamacadda Admas University magaalada Borama ay waxa ka sii ka hadlaysa marxaladda tafaasiil dheeraad ka bixiyay ardayda maanta soo bandhigtay buugaagta Ilyas Faarax Xasan oo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Admas fariceeda magaalada Borama buugoogii qalinjabinta iyadoo qalinjabinta ay foodayna ugu soo hayso isleenahay ma 21 ka dhacay 22 insha Allah waqtiga ilaahay maanta ardayda buugtooda difaacday waxay haayeen ilaa 3 kuliyood kala duwan afar kuliyood baa jaamacada Qalinjabinaysa laakiin kuliyood waxaan u dhignay inay ay soo qaataan internship program kadib markay internship engineering ay soo dhameeyaan internship program kaagaasi inay project-googa ayagu difaan gareeyaan laakiin kuliyodaha maanta difaacan iyo buugtooda waxay haayeen ardayda caafimaadka oo public health officer la yiraahdo ama second doctor la yiraahdo loona yaqaan BHO soo kale ardayda buugta difaacanaysa waxa kamid ah kuliyada ICT-ga iyo kuliyada diploma study-ga social science-ka ardayda soo dhamaan u rajeynayo inay dhammaan kooda guuleysteen difaaci buugaha difaaciyeen ugu dambeyntii gudoomiyaha guud ee jaamacadda Admas ee magaalada Borama Professor Axmed Abdullaahi Tallan ayaa waxa uu fariin u diray ardayda ka baxday dugsiyada sare ismaantan wax faynarada ka bixiyay kulliyadaha kala duwan soo kordhisay jaamacadda Admas oo hore loogu dhigan jirin waxa kale oo ka fariin wadalaya oo fariinta wadalaya waa graduate secondary ka burgay inay jaamacadda registration-keedu uu maartay iyagana uu furan yahay oo runtii dibaarmadeedna ay ku yimaadaan 12 dibaarmad iyo wax ka badan oo jidka ka taw socdo oo bisaan fursad u faysto markaas maxay islaamka ay furta ay ka saarto adiga hasheen inay ugu helaan say u helaan inay ugu faa'iideystaan Admas aan ka warhayno waxaad moodaa inay ballaarinayso qorshaheegi oo jaamacadda Admas waxa weeyaan hadda 2015 baan ka furnay Borama laakiin maanta waxa 3 sano kadib waxa qalinjabinaya first batch oo maanta aan u fadhinay tiiskoogii bay difaaciyeen jaamacadda Admas main campus-keega wuxuu ku yaalaa Addis Ababa ayuu ku yaalaa soo kalena branch fara badan bay ku leedahay maxaa Ethiopia soo kale farac qaybna waxa ku leedahay Hargeysa qaybna Borama soo kale Puntland Garowana waxa ku leedahay branch soo kale jaamacaddu waxa uu qorshaysan 2020 inay gaadho meelo fara badan oo magaranayay waxbarashada ku fidiso sida dalka Djibouti oo la doonayo in iyadana qayb laga furo soo kale South Sudan qayb ka furan jaamacaddu waxay doonaysaa inay East Africa oo dhan bahay fiirgarayso waxbarashadeeda marka ardayga jaamacadda Admas dhigtay wuxuu fursad fara badan u helayaa dhammaan dalka kala duwan inuu jaanis ka helo haday noqoto jaanis shaqo iyo haday noqoto jaanis waxbarasho oo ardaygaasi shahaadadiisa hawlo tago meel kasta oo baahdo Mustafa Caraale Borama